ninka u baahan in hooyadii ay gablanto xaruntiisuna ay agoontoodo xaaskiisuna ay noqoto garoob asay ay qaado haygaga daba yimaado boortan gadaasheeda. اعلموا اني مهاجر فمن اراد ان تثكله امه ويؤتم ولده او يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن داوديال meel walba aad nagala socotaan. ninkaynu maanta ka sheekaynayno waa nin aad u weyn, waa nin ay yar tahay in qisadiisa oo kale aad aragto, geesi qisadan oo kale leh in aad aragtahay, taariikhda aad ay u yartahay. ninkaynu maanta ka sheekaynayno waa amiirkii muslimiinta Umar bin Khattab. maxaad ka garanaysaa geesiga asaga taariikhdiisa? dabada wada ninkani waa ninka asagoo nool jannada lagu bishaareeyay lagu yiri ahlu janna ayaa tahay. waa ninka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo yiri hadii uu jiri lahaa nabi aniga gadaashiida imanaya waxa uu noqon lahaa Umar illa annahu la nabiyya ba'di, laakiin nabi iga dambeeyay ma jiro. laakiin hadii uu jiri lahaa waxa uu noqon lahaa Umar bin Khattab. ninkaynu ka waramaynaahay waa Faaruq alladhi farraqa bayna al-haqqi wal-baatil. nin maalintii uu islaamay xaqa iyo baadilku ay kala miirmeen, baadilka iyo xaquba banaanka ay kala mareen maalintii uu soo islaamay ninka asaga ah. hadaba daawade ninkani waa ninka hadii uu wada qaado wadadaas shaydaanku u ka leexdo oo wadada ninkani maro shaydaan ma maro. Umar bin Khattab wadada uu soo maro shaydaanku ma mari karo, wada kale waa inuu raadsada oo waa qasab. yaa shaydaan maxaad na dhibta anaga waxa weey anaga aad nagu xisma dad ru sheegayso maxaad Umar wada ula mari weys anaga masaakiinta ayaad naga aragtay Soomahan oo aadna waxaysan. dabada wada qisadaas ayaan kula wadaagaya soo dhaw adeed halkan markii koobaad oo aadna aragtay tahay halkani waa taariikh show. waxaan ku soo gudbinay xogaha la xiriira taariikhda. hadii aad waxa weey nagu cusub tahay waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka kambalelkan aad furato saaxiibadan aad la wadaagto. soo dhaw mar kale ninkaynu ka sheekaynaa waa amiirkii muslimiinta Umar bin Khattab. hadaba Umar aynu dib u laabano xilligii la dhihin jiray Aamul Fiil. Umar waxa uu dhashay sanada loo yaqaano Aamul Fiil 13 sano kadib. oo suubana waxa uu ka yar yahay 13 sano ayaa uu ka yar yahay Umar subana naxariisii nabadgal kurkiisa noqotay. hadaba Umar bilowgii waxa uu ahaa mid aabihi xoolo u raaco, aabihiina waa Khattab oo waxa la yiraahdaa Umar bin Khattab. aabihiina waxa uu ahaa mid aad u adag, waana mid sababta in Umar noqdo nin aad u adag oo muslimiinta xilligiisa noolaa ay yiraahdaan waa nin ka kan oo waxa weeye qalbi naxaba aan lahayn ninkani. hadaba Umar waxa uu barbaaray nolol adag ayaa uu ku barbaaray oo aabihi waxa uu ahaa mid geel raacsada oo aan u naxariisanin. saa ka sheekay waxa uu dhin jiray hadii aan si fiican aan maartayahay aan wanaajiyana xoolaha si wacan aan u raacana aabahay waxa weeye si wacan ilama dhaqmi jirin, hadii aan wax xumeeyana waa ka daran jirto canaanta iyo ushu waa ay saaraa jirtay. hase ahaatee taasi waxay dhashay in Umar noqdo nin adag oo haliyay ah. dabada wada sanadii la oranayay Aamul Fiil 13 sano kadib waxa la dhalay Umar bin Khattab Allah ka raali noqday. daba Umar markii uu weynaaday na uu soo ifbaxay nuurka islaamka oo Nabi Muhammad la soo diray waxa Umar bilowgii kamid ahaa raggii dacwada rasuulka cadaawad kala hor yimid oo aad ula colaytamay ayaa u ahaa. hadaba Umar soo ma dhaweynin risaalada islaamka, waxana uu si lamida odayaashii Quraysh asna dhankiisa ka waday cadaawadii ay ku hayeen muslimiinta xilligii muslimiinta la tacdiibinayay bilowgii hore ee islaamka. hadaba wada Umar aynu u nimaadno qisada islaamadiisa. maalmaha kamida ayaa waxa uu go'aansaday Umar inuu ka takhaluso suubanaha. hadaba waa nabiyullaahi Muhammad inuu ka takhaluso oo ay Quraysh ka istiraahdo ayaa waxa weeye shaydaan ayaa Umar qalbigiisa ku soo riday. maalin dharaara ayaa Umar seeftiisi soo qaatay oo gash ayuu ka soo siibtay ayaa uu soo qaatay. waana caado carbeedo ninka carbeed ee weyni hadii uu seefta galka ka saaro waxa waajiba seeftaasi inay wax kala goyso mooyee galkeeda lagu maclisho. Umar seefta ayaa uu soo qaatay kadibna waxa uu yiri maantay ayaan waxa weeye ninkii Maxamed ahaa in badan ayuuna dhibay ninkani oo ilaahiyadeeni uu caayay oo laatay cuzo wax ka sheegay. in badan ayuu kuween aqliga badnaa yiri waa bila aqli oo waa juhaalo uu yiri sida daraadeed ninkan waanu ku daalnay oo hadda 6 sano oo colaad ah ayaa waxa weeye muslimiinta iyo dhaxmaraysa nimankii Quraysh oo magaalada Makka joogay. Umar markuu wuxuu yiri sheekada waa ku daalnay maantay ayaan soo aftaraya kadibna nin ay noqonaysaa sheekadu reer Bani Hashim haday doonaan ha idilan aniga laakiin waxa qasaba maantay in Muhammad aan madaxiisa keeno. seefta ayaa soo qaatay Umar waa soo dhaqaaqay. deedna markii wadada soo marayo ayaa wuxuu ka hor yimid saxaabi la yiraahdo Nuaym ibn Abdullah oo asaga ay jif ahaan isxigeen. deedna Nuaym markii uu arkay ninkii Umar ahaa oo seeftiisa sita ayaa uu wallahi kan baanta balaaye ayaa uu socdaa. deedna waa uu is hor istaagay wuxuu ku yiri war xageed u socotaa balaaye qabay. kadibna wuxuu yiri Muhammad ayaan soo dilaya. kadibna wuxuu ku yiri arrinkaas ma waxaad moodaysaa inuu yahay arrin sahlan man reer Bani Hashim ku deynayaan ayaad moodaa. markaas uu yiri damba kamilihi inay reer Bani Hashim ideeyaan oo haday doonaan ha idilan laakiin ugu yaraan reerka Quraysh waa inay ka nastaan ninkan Muhammad maadaama waxa weeye la isku rafaaday 6 sanana ay cadaawadu marayso. hadaba saxaabiga Abdullah ahaa ayaa waxa uu doonay inuu ninkan suubanaha ka leexiyo oo meel kale u diro. markaaba wuxuu ku yiri war Muhammad ha aadine ma ka warqabtaa horta guryahaagi iyo dadka qaraabadaada war ma ka haysaa. kadibna wuxuu yiri maxaad ula jeedaa ma ogtahay buu walaasha Faatima in islaamtay iyo ninkeedii oo aad qaraabadtiin walaasha Faatima bint Khattab iyo ninkeedii oo Saciid ibn Zayd ah inay islaameen war ma ka haysaa. uma arrintii baa la weynaatay wuxuu aw qad facalat Faatima oo Faatima miyay islaamtay oo miyay ka laabatay diintii miyay islaamtay ayuu. kadibna wuxuu yiri ha waa islaameen. Saciid ibn Zayd waa saxaabiga garanaysaa ahad al-10 al-mubashirin bil janna saxaabadii 10 ahaa
jannada loogu bishaareeyay ayaa uu ka mid yahay Saciid ibn Zayd waxaana uu qabaa Umar ibn Khattab walaashiis Umar markii loo sheegay in saydigii iyo walaashii ay islaameen uu ka jeestay jihadii uu ku socdo Nabiga Maxamed xaqiisa ahayd waxaana uu bayray dhankii gurigii walaashii Faatimo ayuu aaday deedna albaabka ayaa u soo garaacay kadibna waa ay feeriyeen oo way arkeen markaa waxa la joogo labadooda waxa la joogo nin saxaabiga la yiraahdo Khabbab ibn al-Arat oo quraanka baraya u meerinay Khabbab markii uu arkay in ninka albaabka garaacaya Umar uu yahay guriga ayaa uu ku dhuuntay oo waa uu cararay Umarna waa la garanaya adeegiisa qofkii uu gacan u qaadana waxa weeye hawl adag baa gaaraysa Faatimo way aragtay deedna albaabkii bay ka furtay soo careysan ayuu guriga talaq soo yiri markaasuu saxaabigii ilmaadarka ahaayeen xaqna saydigii ahaay walaashi qabay ayuu yiri waxaan maqlay inaad diinta Maxamed raacday maxaa ka jira saxaabigii markaa ayuu ku yiri ka waran Umarow hadiiba xaq jiro diintaada diin aan ahayn ka waran in kaana alxaq fi ghayri diinik markaaba alka barta cunaha ayaa uu qabtay oo iska laalaadi deedna gabadhii xaaskiisa ahayd oo Faatimeeda Umarna kale la dhalatay ayaa intay soo dhaqaaqday waxay tiri iidaaninkeeyga markaasuu bahal dhangalaasa dharbaaxsha ayuu gabadhii daankeeda qabatay ilaa daanka gabadhii uu ninka asaga Umar uu jeexay oo dhaawac weyn oo gabadhii walaashii ahaa uu gaarsiiyay gabadhiina ay dhulka ku dhacday kadibna marka ayuu Umar soo baraarugay oo yiri war maxaan sameeyay dabada wada gabadhii ayana hadalkii ninkeedii kale ayaa ay ku jawaabtay oo waxay ku tiri ka waran Umarow hadii waxa weeye xaq uu yahay diintaada diinaan ahayn maxaan ugu haystaa anaga raacnay maxaa adiga ka galay deedna Umar waxa ku yiri bal ii dhiib warqada aad akhrinaysi aan akhriyo ogow hada Umar waxa ku jira dadka aadka u yar ay wax akhriya waxna qora bulshadan Quraysh ee Makka ku nool waxa aad ugu badan uminimada oo waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan sida daraadeed hebel baa wax qora baa la yiraahdaa ninka wax qora waa ka tilmaamay yahay magaalada ninka hebel ah ayaa wax qori yaqaan waxna akhriyo yaqaan ninka inoo geey ayaa la hadii loo baahday wax la qoro waxna la akhriyo oo dad aad maartay yahay ugu badan yihiin oo waatan yahuud oranayso yaqooluna laysa alayna fil ummiyiin sabil waa quraanka ku arkayso oo ummiyiin ay ahaayeen dadkan nabiga laga soo dhax saaray dabada wada gabadhii Faatimo waxay ku tiri waraan waraq simaayo gaal baa tahay mushriga waa inaad soo qobaysataa kadib ayaan warqada ku siinaya deedna markaa uu soo qobaystay Umar kadibna warqadii ayaa ay siisay kadibna waa uu akhriyay warqada waxa ku qoray taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ayadkaas ayaa ku qoraa suuradan Umar markii uu akhriyaba aad buu ula dhacay aad buu ula yaab hadaba daawada ogow Umar aniga adigoo kala maaha wuxuu ku hadlaa luqadda quraanka lagu soo dejiyay quraanka macnihiisana xaraf ayuu u garanaya macnuhuna meel aan caadi ahayn ayaa uu uga dhacaya Umar qulubtiisa markii uu akhriyay ayuu yiri min hada farrat Quraysh alla wanaag badna kan ay Quraysh ka carartay buu alla hadalkan macaan badna hadalkan qofka ku hadlay wuxuu mudaya in la caabudo ciidan asaga hayna aan la caabudin markaasuu ku yiri tusiya Maxamed xageeba uu jira markaas lagu yiri Nabiyullaahi Maxamed waxa uu jira daartii Arqam ibn Abi al-Arqam waa soo dhaqaaqay halkaas ayaa uu soo aaday deedna saxaabadii nabiga ag joogtay ayaa kor ka arkay Umar Hamza oo 3 maalin ka hor islaamay xilliga Umar uu islaamayo sanadii 6aad ah ayaa guriga la jooga nabiga sallallahu markii la arkay Umar oo soo socdana waxa la yiri warninkii balaayada Umar ayaa soo socdo deedna Hamza ayaa ku yiri iska daaya hadii uu shar wadana seeftiisa ayaanu ku dilaynaa hadii Ilaahay khayr la doonana uu islaamaya Hamza deenin ciyaar ma wad garanaysaan Hamza ibn Abd al-Muttalib oo nabiga adeerkii ah dadka wuxuu ku jira farakutiriska haliyada geesinimadu ay xad dhaaftay ee aan baqinba marka wuxuu yiri hadii uu khayr wadana uu islaamaya hadii uu khayr wadina seeftiisa ayaan ku dilaynaa iska daaya in khatab deedna rasuulka ayaa yiri kan leexda ninka saad moodeen maahe isaga leexda markii albaabka laga furay guriga soo galay ayaa nabigu barta cunaha qabtay kadibna wuxuu ku yiri ama tantahi ya Umar war miyaadan joogsanin Umarow la dagaalanka islaamka la dagaalamayso miyaadan ka joogsanin miyaadan ka baqaynin in Ilaahay musiibo cirka kaaga soo rido markaasuu yiri ya rasuulallah waxaan ku yimid ana muslima waan islaamay barta ayaanu ashahaatika ku qari Umar shadu la ilaaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muslimiintu idil aad baa loo farxay hadaba waxaan ka soo ilaabay maalmaha kamida ayaa nabigu markii xaaladu aad u adkaatay buu Ilaahay bari wuxuu ku yiri Ilaahayow labada Umar midkii xagaaga laga jecel yahay diintaada ku cizay Allahumma أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إلههم لبضن واوين مت كمية دين تاذا كحوج أي نبي صلى الله عليه وسلم سدا أيو كدو عيسى إلهي وكبري لبضع عمر واكما وانيك اللي وراني عمرو بن هشام وأبو جهل يا عمر بن الخطاب وصحابي جينا ما انتقى إلهينا وحو أقبلي دعاء رسولك دين تنوحى الله كحوجي عمر بن الخطاب عمر مركي وإسلامي وهو صدق إسلام مركبة وحنا ويمدي الباب كوصو قراعي نينك عدو إلهي يا أبو جهل المسلمين تعذابي أما قال مكة لو عالو واهي أو عد مسلمين تكاقبة لواهي أيو الباب كوصو قراعي جو أبو جهل الباكي مركو صاو فربا عمر بن الخطاب هورتاغن مركاسو يري وري عدو إلهيو ما مقاشي بور إنا إسلام مركاسو إنها تاغ أبو جهل أو مياد إسلامت وان إسلامي بور أبو جهل هذا الموصول سوعي من القرى الباكي أيو حرتي وقرقيس أيو كو عرر كدون واحد سمي هل أيا وتغي وضياشي قريش هل أيان وشيغي إنو إسلامي لما أنتودنا وأوسو عرق لي وكسو حناجي تاكو مقاف سنة واحد سمي نين أيا ويدي مقالة مكة كما وعدير كدون واحد لير مقالة مكة هبل با وعدير نينك أيا عمر انتو كريستي أيا وكويري دادك وشيك إنان إسلامي هذا نينك أيا
كنا واقعي سبع عمر عمر وإسلامي ديدنا وحويري كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر عدو إلهي بين بات شكتي وحوي سبع وحوي استعمالان قفك دينتي سكلابتا والنبي الله محمد راعى أيا واحد إجرين كوي صابي انتهى ودينتي كلابتي markaasuu cumar ku yiri saabi mihiya qof muslim inaan ahay dadku u sheeg cadow ilaahay baa tahay markaasuu yiri aslama cumar waa islaamay maalintii cumar islaamay waxa ay noqotay maalin ay qurayshi mugdi gashay oo waxa way gacan ku gabad ay noqotay waxaan ku yiri wallahi hadaan 300 ahaan lahayn magaalada wada ka saar lahayn markii uu soo islaamay cumar markiiba rasuulkii ayuu ku yiri ya rasuulallah alasna ala alhaq soo xaq kuma taagin rasuul allah oo hadiina la dilo soo janna gelmayn rasuulku waxa ku yiri ha hadiina la dilo janna ayaan galeynaa markaasuu yiri maxaan u cabsanaynaa miyaanan bixaynin oo mushrikiintii waxa way quraysh joogta ahnan tusinaynin inaan xoog lana deena rasuulku waa ka aqbalay markaas muslimiintii waxa ay sameeyeen dowlatuskii ugu horeeyay magaalada Makka ay dowlatus ku sameeyeen muslimiintii ayaa soo baxay ayadoo maalintaas ay tahay tiradoodu 40 qof hadoogo 6 sano ayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam magaalada Makka dadka diinta ugu yeeraya waxana islaamay 40 qof oo Umar ayaa ahaa qofka 40aad ee islaama 39 qof ayaa ka horeysay saxaabigeena qaliga Umar ibn Khattab markaas ayay ka soo baxeen muslimiintii daartii Arqam ibn Abul Arqam ayagoo 40 markaas Kacbada dhaxmareen ayagoo muslimiinta midigtana حمزة كسعده بدحدنا عمر كسعده عبد الله بن مسعود وحول ليه أود أمانا لهين إن كعبة كده كنو إلى عمر كسو إسلامي عمر مركي وصو إسلامي هي أود ويانا إن كعبة كده كنو ده وحي أنت كده بي عمر وحى وحنين جيسية وإسلام كأجر جارة سيدي وبعد الكبو وأتكا سكدرن هي حقنا وأتكاذي وحنا النقضي جيسي كمل جيسية إسلام هنيي أن عادي هين وكالين تسعد قادتها أيرتها هي أو نقضي وحنا النقضي وزير كلمات رسولك أبو بكر كدب وحنا أهمت رسولك اللازمة سيدا هركبة وقول لازمة قفكيس عمر وحوي مال نبي محمد آدي كما هرين إن بدن بركة دين تأخرنيس وحضر كيسا أبو بكر يا عمر أيا بحي أبو بكر يا عمر أيا يمي أبو بكر يا عمر أيا سدا يمشى يمال هبلاية هرنتا كسوقبت أد بدو كيسا هرنتا أيدا عمر نبي أيا اللازمي مال أنت مركي إسلامي وحي كدم بي إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وجود قال هذا وده مسلمين تمركي هجرة الله فصحي تذكرن سقر سعودية أيا كوي جرودين مركل لجر ريبو نين كان مانتا إنه كهذا لين عمر بن الخطاب عمر واحد سميه مركي ودوني إنه هجرودو وأصاب حي كعبد أيا يمت وطوافي لبرك عدود هذا قروح بدنا وأودكذا كدبنا واحد سميه واحد سويري نمنك قريش كدبنا واحد كويري نك دونيو إن هو يدي قبلنتو حرورتي سنة يعقون نقطة حاس كيسنا أي قراب نقطة أنت أصايق هذا كدب أي قراب نقطة هاي قدو يمادو وادي قلاشيس عرف يا صادقاق نمنك قريش أيوة إنها تاجي أيوة برت عمر كل دقاق لبا تنقف كلوات هي أنا عمر بن الخطاب راعي مركي وهجنوني أما قال المدينة العادي نين وحوها آن لقول عن ونين هو يا الشيء ونصهر استاجي كريم قريشنا وأودي ويسي إن وحوي أي كعليان عمر هجرتي وهجروني هذا وده أنت وحي كده بي عمر وحا ونقضي هليي كمدا هليي المسلمين تا مركي النبي صلى الله عليه وسلم ومقالة المدينة يمد iyo wixii ka dambeeyana waxa mid rasuulka laazima waxaana Umar ka qayb qaatay dhamaan dagaaladii muslimiinta sida Uhud iyo Badr iyo wax alla wixii ka dambeeyay oo dagaal Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qaaday ama duulaan Nabiga uu qaaday waxa Umar mid ka qayb qaatay oo dhamaan duulaanadaas oo dhan Umar waa ka qayb galay wada Umar waxa uu qabtay xilkii muslimiinta oo waxa uu noqday amiirkii labaad ee muslimiinta Abu Bakr markii uu geeriyooday waxaana uu xilka hayay 10 sano Umar xilligiisii waxa dhacay dagaalo waaweyn sida dagaalkii Qaadisiya Umar waxa uu ahaa ninkii dawladii reer Furus afka ciida u daray ee baabi'iyay ayaa uu ahaa oo ku guuleystay in dawladii la oran jiray Faris ee maalmaha kamid ah dawladda labaad ee adduunka ugu xoog badan marka laga reebo dawladii Roomiyiinta Umar ibn Khattab ay afka ciid u daray oo xilligaas ayaa laga takhalusay boqorkoodiina xilliga ayaa la dilay dhammaan dhulkii ay gacanta ku haysana muslimiinta ayaa qaatay sida caasimadii la oran jiray Madaa'in ee Ciraaq meesha la yiraahdo maanta ku tiilay ayaa muslimiintu ay la wareegeen Umar ayaana halka kaga takhalusay mid kamid ah imaratoriyadii labaad ee uu waqtiga dheereed xilligaas wada Umar wuxuu ahaa mid caadil ah oo muslimiinta 10 sano uu xukumay cadaalad ku kala maamulo ayaa uu ahaa hadaba aan kugu akhriyo hadalkii uu ka yiri ninkii la oranayay Hurmuzan oo ahaa hogaamiyihii reer Furus ay muslimiintu ka soo qafaasheen meesha la yiraahdo Tustur magaaladii muslimiintu ay ku rafaadeen oo sanad iyo bar go'doonka ay ku hayeen oo sanad iyo bar kadib ay gacanta ku dhigeen muslimiintana aad u rafaadiyay ninka markii ay soo qafaasheen muslimiintu magaalada Madiina ay keeneen hadalkii uu ka yiri ayaa rabaa inaan kula wadaago dabada ogow ninka la yiraahdo Hurmuzan wuxuu ahaa nin muslimiinta aad u dhibay balamo badan ka baxay dagaalkii muslimiintu ku qabsanayeen Tusturna saxaabo badan ayaa u laayay waxaana ku jira saxaabada u laayay ninkii la oranayay Bara ibn Malik waxa kamid ahaa Majza'at ibn Thawr raga qaaliga ayaa u laayay saxaabiga la oranayay Anas ibn Malik iyo saxaabo kale ayaa u soo dhiibeen muslimiintii ayaga ayaana soo waday magaalada Madiina markii ay soo gelinayeen ayaa ay ku yiraahdeen xira dharkaagi dharkii boqorada lagu yaqiinay ayaa u xirtay ninka la yiraahdo Hurmuzan oo bilado iyo balaayo dhan ayaa u xirtay kadibna magaalada Madiina ayaa ay soo galeen kadibna waxa ay raadiyeen Umar ibn Khattab Umar ayaa ay waayeen ilaa xaafadiisii ayaa ay ka waayeen kadibna waxa ay aadeen dhanka iyo masjidka oo masaajidka ayuu jiraa
ayaa lagu yiri. Hormuzan sidii ay saxaabadii u soo wadeen ayaa waxay dul keeneen Umar ibn Khattab oo hurdaya meel geed hoostiisa iska jiifa wax waardiya iyo wax xaashiyaha ag taaganina aanay jirin. ninka Hormuzan ayaa lagu yiri Umar waa kan hurdaya deedna waa u qaadan waayay war maxaa qaldan ma amiirka dhan ee muslimiinta ayaa ninkan sidan u muuqda geedka hoostiisa jiifa ayaa markaas lagu yiri waa ninkan Umar waa u soo kacay kadibna saa ayaa u fiiriyay kadibna wuxuu yiri ma Hormuzan baa ninkani kadib lagu yiri markaas uu yiri ilaahaygi ku duleeyay ayaa mahadsan kasoo siiba ayaa uu yiri dharkan kadibna ay keenay Hormuzan markii uu ninka Umar ibn Khattab xaaladda uu ku arkay ayaa wuxuu yiri waad cadaalad samaysay kadibna sid nabada ayaad geedaha hoostooda u seexatay ayaa ku yiri dabada wada Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah ka raali noqday kama gaari kareyno oo waxa weeye qisadiisu aad bay u dheer tahay laakiin inta yara kooban ayaan kula wadaagay maadaama dadku aysan jeclayn muuqaalada dheer oo waxa weeye xogaha YouTube ay sheegayaan in dadku ay jecel yihiin muuqaalada gaagaaban saadaradeed inaan muuqaalku dheeraado anagoo ka cabsanayno ayaan inta ku soo koobayno laakiin Umar hadaynu dhahno waynu ka sheekaynaa qisooyinkiisa dhammaan waxa weeye maalin dhan ay u baahan tahay in laga sheekeeyo ninka ansaga waxaan insha Allah taala qisooyinkiisa aynu u soo qaadan doonaa ala shakli laqataad inta ayaa ku soo gabagabaynayaa taariikhda saxaabiga weyn ee Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday amiirkii labaad ee muslimiinta mid kamida ragga waxa weeye ay adag tahay in ayagoo kale aad ku aragto taariikhda hadii halkan la soo gaartay janka subscribe صاحبنا لو ذاك حوي أدبن كون سلام يا لصعو مقالك حقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.